عشركان وعشركين نوسعها learn how to use a window PowerShell INC عشركان وحمرنا عشركي لباتني أفراد أيام مرينا عشركان وحوك السابسية هاي نيو سكريبكي أنقرني عشركي كوري عشركان وحان سمينينا سكريبكي أنقرني أنا execute أن سمينو run the execute وحلي رادا نقريننا وديرا مايو أدان هالكا تغو هركسان عشركان وعشركي لواتني أفراد ويان أو window PowerShell ISC كمانكا أن كسو هاليني أما جلاسكي أن كان لين window PowerShell سو استعمال لهد and executing a PowerShell script هاواي و PowerShell script are powerful ويان وحالو استعمالا marka sameynaysa koodka AD oo kale ama Active Director u sameynaysa koodka script oo isticmaali kartaa oo execute u sameynaya C# sidoo kale waa loo isticmaalaa SQL coding marka sameynaysa asagana sidoo kale waa loo isticmaalaa execute ama script waa la qoraa oo kabacdi execute banda execute la sameeyaa and maybe it is powerful or maybe it's not too powerful marka execute ka waxaan caaw uga hadlaynaa waxaan garanaynaa in new script ki aan qornay cashirkii ka horeeyay marka ugu horeyso waxaan tegaynaa PowerShell ka halkaas ayaan tegaynaa waxaan ku taab garanayaa PowerShell ayaan qorayaa PowerShell ka aan la soo baxayaa sawartan markaan la soo baxo oo weyneenaya halmana qoraya PowerShell ka okay PowerShell ka sawarkaysan PowerShell kan waxaan halkaas ku taab gareenaya cd alleeyahay slash alleeyahay backslash intaan taabanaya kabacdi waxaan leeyahay cashir koori waxaan ka soo hadalnay waxa la yiraahdo dir intaan leeyahay sawarkaysan first script aan qornay waa kaasa halkaas uu ku jira script ugu horeeyay aan qornay oo galaaskii koori aan qornay waa kaasa waxa waaye first script /ps1 taas ku dheeraamayo halkaas ayaan waxaan leeyahay c ayaan leeyahay بعد semicolon backslash الله first الله يا script first script dash أما period ps1 الله هاي انتر عيان تابنا وكاسا script وغوري عن قري هذا execute عيان كسميه واركسان هذا execute عن كسميه script وغوري عن قري هذا كل لابتو إن عكلا هذا وديجو هالكاس عيان وحن الله هاي عن كورايا waxaan leeyahay period ama /backslash/first aan leeyahay script ayadan sidoo kale slash aan leeyahay ps1 aan leeyahay intaan taabanaa waa kaasa labadaas baa u isticmaali karaa haddaba scriptka aan qornay inuu shaqaynayo in kale execute ayaan ku sameeyey waaran garanay waa arkaysaan execute markaan ku sameynay soo arkaysid execute ka markaan garanay koodka ayaa noo soo baxay sawarkaysan koodka ayaa noo soo baxay koodkaas hadii kale kuma u sheegi lahayn haduu execute ka shaqeynayo halkaas waxay ahaan lahayd red ay ahaan lahayd haddaba ku dheeraameen cashirkan waa cashir gaabo weeyaan waa cashirkeeni oo noo socday oo loo isticmaalayo how to use window PowerShell IC classkan hadaa ku cusub tahay ama janankan YouTube-ka oo Tag IT hadaa ku cusub tahay subscribe ka noo saar like ta taabo comment ka bixi comment kaada noo muhiim waaye